السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, wax kastoo ay ku tahay wanaagsan. Kusoo dhawow channelka Surbiyaan channel. akhyaarteeda sharafta leh waxaa maanta idila qaybsanayaa keegan aad arkaysiin ee quruxda badan la qaabka aan u sameeyay iyo wixii aan ka sameeyay. Kulli maxaad is leedahay maxay ka sameysay? Wuxuu u eegahay chocolate inaa laga sameeyay because brown waaye, laakiin kama aana sameynin wax chocolate aan kuma aana darin ama chocolate insha Allah, laakiin waa arki doontiin qaabkan quruxda badan ee brownka ah ee chocolatada u eg sida aan ugu sameeyay. Si easy oo fudud ayaan u sameeyay insha Allah. waxyaabaha aan ka sameeyay oo dhammaystirana waa idila qaybsanayaa. Ha ka degdegin videoga, waxaan rajeynayaa inaad dhammaysan doonin. daawasho wacan. waxa ugu horeeya ee meesha aan ku haysto oo aan ka bilaabayo waxaa waaye waa timir. waxaan sameynayaa waa keeg timir waaye. waxa aan sameynayaa insha Allah timirta waxaan ka bilaabay inaan jarjaro oo yaryareeyo si yaryar ayaan u jarjaraa insha Allah. kadib markii aan wada jarjarana waxaan sameynayaa digsi ayaan ku shubanayaa haddii Ilaahay yiraahdo. digsi ayaan soo qaadanaya, digsi ayaan ku shubanaya. waxaan rabaa inaan saaro dabka haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan ku darsanaya keligay dabka lama saarayo. waxaan ku darayaa caano 2 koob iyo bar caano ayaan ku shubanaya. timirta waxaa ku gararaysaa caanaha inay kasoo dulmaraan uun. hada timirtaada caano ay xoogaa soo dulmaraan waa arkaysaa. haye dabka saarayaan keena. hadda dabka ayaan soo saaray timirtii iyo caanihii kaliya waaye, wax kale ma aana kusoo darin. marka ay bislaadaana iyo qaabka ay saadaar timirta waa shiidan kartaa, laakiin ana waa karinaya sababtoo ah timirta markii la kariyo waxay noqonaysaa soft jilicsan oo macaan ayay noqonaysaa. laakiin markii la shiido waxaa u maleysaa wax yar oo mataqaanaa xoogaa wax timirtimo iyo wax inay ku jiraan. saana marka ka fudud inaad dabka saarto caanana ku karisid sidii ay smooth ugu noqoto oo aan loo malayn timir inay meeshan ku dhex jirto oo waxba ku dhex jirjirin ba insha Allah. marka timirteeni saana mataqaanaa aan ku bisleynayna qaadadan ayaan soo qaadanaa. wax yar ayaan burburinaya, saaidna ma u burburinay, laakiin xoogaa waa mashkareynaa insha Allah. qaadadaas hadaad haysanina dhimal kooba isticmaali kartaa oo aad ku jajabin kartaa xoogaa dheer. waa kaasa. kadib hadda waxaan bilaabeynaa timirta waan dhigaynaa inay noo qabowdo ayaa la rabaa. timirta waa taasa waa soo dhigay. alaabtan dhan ayuu ka kooban yahay insha Allah. keeg aan sameynayo xaba xaba ayaan i tusi doonaa. waxa aan ka bilaabay waa subag ama batar. batarkaagu yoona ahaana mid dhalaalsan oo aad soo dhalaalisay ama mid maxaa la dhahay temperature-ka guriga uun ha ahaado. waxaan ku daray 2 sonkor oo kala nooc ah ayaan ku daray. sonkorta brownka iyo sonkorta cad hal koob isku noqonaa half and half ayaan ku daray. kadib sonkorta iyo waxaan rabaa inaan isku qaso oo si fiican oo smooth inay isku dhex galaan inta aan waxyaabaha kale ku darin. sonkorta inay dhalaasho oo subaga iyo sonkorta ay isku qasmaan. marka subaga iyo sonkorta ay isku dhalaalaan oo isku milmaan ayaa waxaan kusoo darsanaya waxyaabihii kale iyo istaafka kale insha Allah. daawasho wacan. gaarteen inta arkaysiin subagii iyo sonkortii sidii aan rabay ayay ii noqdeen isku soo dhalaaleen. hadda waxaan bilaabayaa inaan ukunta ku daro 5 xabo oo ukun waa ukunta isticmaalayo. waxaan bilaabaa ukunta inaan xabad xabad ugu daro, tartiib tartiib ugu daraya. xabadaas hadba ku daraya waa ku qasaya marba xab 5 xabo hal mar kuma wada daraayay. xaba xabadan ugu daraa. marka xaba xabad ugu dartid waxay noqonaysaa si fiican ayay kuugu qasmaysaa. subagina iyo sonkortii ayay si fiican u dhex galaysaa. marka waxaan rabaa inaan xaba xabad aan tartiib tartiib aan 5 xababa 5 mar aan ku kala shubo haddii Ilaahay yiraahdo oo aan si mataqaanaa tartiibteeda ah aan u qasto insha Allah. marka waa kaasa. hadda 2 xaba aan ku daray insha Allah. soo far 2 xaba ayaan ku daray. tii saddexaad ayaan hadda ku soo darsaday. saa inay sheegay xaba xabadaas ayaan mataqaanaa ku soo dhameynaa haddii Ilaahay yiraahdo. ma ku wada daray hal mar ma ku wada shubaay. soo umateedan si qurux badan oo smooth ah ayay mataqaanaa aan u shiidaya markii aan qasayo haddii Ilaahay yiraahdo. waa taasa saasaan ku wadaaya maasha Allah. waxaan rajeynayaa keegan kasoo bixi doona inuu noqdo keeg aan aad iyo aad u macaan aan caadi ahayn. aad ka heli doontiin soona tijaabin doontiin insha Allah. akhyaarteeda sharafta leh ee ugu xiran dhammaantiina xabadii u dambeysay ayaan hadda kusoo daray. marka keegii sidan ayuu hadda xoogaa diyaar noogu yahay. waa soo dhammaystiraa. waa kaasa waa soo dhammaystiray qaybtii u horeysay. hadda waxaan kusoo darayaa timirtii
timirtii waa saa ogeydeen waa soo karinay laakiin lama rabo ayadoo kulul absolutely waa inay si fiican usoo qabowdaa ayadoo kulul ha isaga darin inay si fiican usoo qabowdo waaye ama biyo ku dhex rido ama time halkaa iska dhig aday ku taa laakiin waa inay qabowdo un waxaan kusoo daray hal qaada camal oo qorfaha shiidan qorfo shiidan ayaan kusoo daray somehow qorfaha iyo timirta way isla shaqeeyaan aniga waa jeclaha qorfo iyo timir caraf wuu siinayaa qarfaha dhadhan macaana wuu siinaa hadda waxaan sameynaa waxyaabaha qalalan isku darsanaa cusbo yaraan waxaan kusoo darsaday burka ama daqiiqda baking powderka lagu daro ana waa kusoo daray inta qalalan ayaan isku soo darsanaya waana walaaqaya haddii ilaahay yiraahdo waa isku soo walaaqaa intii qalaleen kadibna alaabteedii diyaarka ii ahayd oo halkaan ii ayaa waxaan sameynaya burkii inaan tartiib isagana sida ukuntii oo kale aan ugu soo daro burka aan isticmaalayana waa hal koob weeyaan adiga koobkii markaas aad isticmaalaysid ayay ku xiran tahay iyo digsigaaga waa soo qasaa waa isku soo noqonaynaa akhyaarteeda sharafta badana waa kana waa qasay kadib waxaan rabaa inaan sidan mataqaanaa aan qaadada isku raaciyo inta u dhiman saa u ogaado inay salka wax fadhiisanin oo burbur iyo waxaas aysan jirin qaadada ayaan isdhex marinayaa sidaas tartiibta ah ayaan isku dhex marinayaa kadibna diyaar waaye hadda kaliya wuxuu u baahan yahay inaan ofinka aan u diro kuna shubo weelka aan ugu talagalay digsigan ama doolshada birta lagu samaysto noocan ayaan haystaa maasha allah kana ku sameynaya saa ujeedin batar ayaan soo wada mariyay ama subag ama saliid wixii markaa aad isticmaalaysid aad soo wada mariyay si uusan kaaga dhigin oo easy uu kaaga soo baxo qof kasta wuu garanaya saasaan soo mariyay marka waan kusoo wada shubay maasha allah qurux kalarkiisa soo ma jeedin kalar oo wuxuu noqday brown oo qurux badan maasha allah markuu dubnana hadhowna waa arkaysin kasii qurux badan uu noqonaya keegti marka inama caadi ma aha maasha allah waaye saan waxaan u sameynayaa inaan wax yar miiska saa ugu gargaraaco because waa fiirinaa 45 daqiiqo ayaan ofinka u diraa kadib waa isku soo noqonaynaa maasha allah tabaarakallah waa kana hadda ayaan kasoo bixiyay waxaan jaabinayaa in uu mataqaanaaye uu bislaaday wax qoyaana iyo waxba toona uusan lahayn qallayl waaye waa bisilyahay wax yaraan sugayaa 5 daqiiqo camal kadib waa gadinaa hayaha ka sheekay akhyaaray qurux maaho maasha allah tabaarakallah keeg timirku caadi ma aha carafta macaanka kaala iska arag waaye waxaan rajeynayaa hore haddaad u tijaabinin oo maanta ay tahay inay kuugu horeyso keeg timir sida loo sameynaya ay aragtid in aad tijaabisid hubaal waad ka helaysaa anaa og sababtoo ah keeg timirku aad iyo aada u macaan yahay runtii maasha allahna waaye marka soo tijaabi wax walbaba waa la isku dayaa markaasna waad keenaysaa insha allah by step u fiirso soo tijaabi waxaan rajeynaa inaad keegan soo tijaabin doontid waxa aan ku daraayo waxaa waaye soos aan samaystay caramel aan samaystay anigu waaye sida aan u sameeyana fideogiisa waa inii soo gelinaya ha ka degdegin sug insha allah wuu ku xigaa fideoga ku xiga ayaan rajeynayaa inuu noqdo insha allah waayo keeg timirka iyo sooskan caramelka la dhahay ma kala haraan haddii aad keeg timir samaysatid waa inaa haysatid sooskan way isku macaan yihiin wayna isla shaqeeyaan sooskan la-aantiisa ma shaqeeya keeg timirka dhadhankiisa ayuu soo saaraa aada iyo aaday labadan isugu shaqeeyaan keegan quruxda badan leh aadka u macaan aadkana u quruxda badan indhahaagana soo jiidanaya iyo caramelkan ayaan maanta idila qaybsanayay aada iyo aada u fudud yahay aadna wuu u macaan yahay waxaan rajeynayaa walaasha i daawanaysa ama walaalka i daawanaya inaad ka heli doontid soona tijaabin doontid insha allah sameyni doontid biidnillaah la wadaag asxaabtaada u sheergara familkaaga iyo saaxiibadaadaba intaba sidii ay uga helaan ugana faa'iidaan haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aadna soo booqatid hanaga ilaawin subscribe-ka inaad noo saartid times upka suulkana koraa u taagtid wuxuu naga caawinayaa inaad subscribe ka saartid mar walba fideoyada aan soo gelino dhaqso ayay kuu imaanayaan adi ayaa ugu horeynaya waa haddii aad tahay qof subscribe noo gambaleelkuna uu furan yahay suulka haddii aad kor u taagtidna wuxuu naga caawinayaa fideoga inuu gaaro meelo fog inuu gaaro marka hanagala bakhaylin haddii aad daawatid suulkana iska saar korle u taag wax ma kula dhibaayo anagana wuxuuna tarayaa aada iyo aada u mahadsantihiin markii aan jaray saas quruxda badan ayuu noqday intaas ayaan maanta idinla qaybsanayay
intaa video dambe ku kulmayna waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.